soo dhawaada saaxiibayaal barnaamijkeennii ciyaara halkaad kala socotaan waa Cawaalo Official Channel. Qodobada ugu muhiimsan wararkeennana waxaa ka mid ah kooxda Watford ee eryday tababaraheedii mid cusubna magacowday. Dusan Vlahovic oo u dhaqaaqay dhinaca iyo marwada cajisada. Frankis oo iska diiday Tottenham xilli labada kooxood heshiis ay gaadheen. Antonio Martial oo wareegay koox ka ciyaarta horyaalka La Liga. Dhimasho iyo dhaawac tiro dhaafay iyo khasaaro kaloo ka dhashay ciyaartii xalay dhex martay Cameroon iyo Comoros. Kulamada caawa laga ciyaarayo koobka qaramada Afrika waxaa ka mid ah Senegal oo qaabili doonta Cape Verde, Morocco iyo Malawi oo ballansan. Barnaamijkan oo faahfaahsan daawasho wacan saaxiibayaal. Xulalka Senegal iyo Cape Verde ayaa caawa ku ballansan kulan ka tirsan koobka qaramada Afrika wareegii 16aad. Xulka Cape Verde kulan ka tirsan koobka qaramada Afrika ama isreebka koobka Afrika weli guul kama gaadhin, waxaanay kulamo rasmi ah iska hor yimaadeen 2 jeer oo xulka Senegal ayaa marna guul ka gaadhay kulanka kalena barbaro ayay ku dhammaadeen. Xulka Senegal wuxuu ku dhiban yahay dhinaca gool dhalinta, isagoo 3 ciyaar ee gruubka dhaliyay 1 gool oo keliya. Malawi iyo Morocco ayaa caawa fooda isku dari doona kulan ka tirsan koobka Afrika wareegga 16aad saacadda Geeska Afrika markay marayso 10 habeenimo. Xulka Malawi 6 jeer uu ka hor yimi xulka waddanka Morocco weligii kama guuleysan. 2 jeer barbaro ayay galeen, 4 jeer ee kalena afka ayaa ciidda loo daray. Xulka Malawi oo ahayd markii koowaad uu soo gaadho wareegga 16aad ayaa markan isha ku haya inuu taariikh cusub sameeyo uguna gudbo wareegga xiga. Deenu intaa kaga nimaadno koobka qaramada Afrika. Kooxda Watford ee eryday tababaraheedii mid cusubna magacowday. Kooxda kubadda cagta Watford ayaa si rasmi ah waxa u eryday tababaraheedii Claudio Ranieri, waxaanay si ku meel gaadha u magacowday tababaraha rugcadaaga Roy Hodgson, isagoo maamuli doona inta ka harsan xilli ciyaareedkan, iyadoo weli isha ku haysa Watford 2 tababaro oo Talyaani ah in ay ku beddesho Roy Hodgson laftirkiisa imika magacowday. Dusan Vlahovic oo u dhaqaaqay dhinaca iyo marwada cajisada ayaa qodobkeenaas aynu qaadaan dhigi doona. Kooxda Juventus ayaa tallaabo u qaaday saaxiibka weerarka uga ciyaara kooxda Fiorentina ee Dusan Vlahovic kadib markii ay la xidhay wakiilka xiddiga si ay ugu qanciso inuu ku biiro kooxda Juventus. Dusan Vlahovic ayaa diiday inuu taleefanka ka qabto kooxdiisa xilli Arsenal dalab ka soo gudbisay saxiixiisa. Frankis oo iska diiday Tottenham xilli labada kooxood heshiis ay gaadheen. Qodobkaas ayaa aynu qaadaa dhigi doona. Xiddiga khadka dhexe uga ciyaara AC Milan Frankis ayaa iska diiday Tottenham iyadoo labada kooxood heshiis gaadheen, waxaanu doortay inuu ixtiraamayo heshiiska uu ku joogo San Siro Stadium. 26 jirkan qadaraaskiisa Milan ka hadhsan yihiin 5 bilood oo keliya ayaa la filayaa inuu si xor kaga tegi doono bisha Juun, waxaanu si cad uga hor yimi qorshaha kooxda Talyaani ee doonayso inay uga faa'iidaysato lacag ka hor inta aanu la gaadhin waqtigiisa qadaraaskiisa u dhacayo. Kooxaha PSG, Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Tottenham iyo naadiyo kale ayaa dhammaantood doonaya, waxaana ugu cadcad Tottenham oo doonaysa inay AC Milan kaga bedelato 3 ciyaartoy oo ka mid ah Dele Alli. Antonio Martial oo heshiis la gaadhay koox ka ciyaarta horyaalka La Liga waa kooxdee. Qodobkaas ayaa aynu milicsan doonaa. Weeraryahanka Man United ayaa xalay saqdii dhexay safar ku tagay waddanka Spain kadib markii ay kooxdiisa heshiis la gaadhay naadiga reer Spain ee Sevilla.
wariyaha reer Talyaani ee saxafiga caanka ee Fabrizio Romano iyo saxaafadda waddanka Faransiiska ayaa shaacisay in heshiiska Man United Ishbiiliya ee amaahda Martial la dhammaystiray xalay. Waxaa labada kooxood isku afkartay in dhammaan mushaharooyinka laacibka bixisa kooxda reer Spain ee Ishbiiliya. Martial oo hore ugu ciyaari jiray kooxda Monaco ee Man United 60 milyan oo geni kaga soo iibsatay sanadkii 2015 ayaa dalbaday inuu amaah lagu daray maadaama aanu boos joogta ka helaynin Old Trafford. 26 jirkan ayaa Man United u ciyaaray 269 kulan, waxaanu dhaliyay 79 gool. Hase yeeshee, waxa Old Trafford laga dareemay inaan laga helin wixii laga filayay. Sidoo kale, imaanshihii Cristiano Ronaldo ayaa cadaadis badan kala kulmay maadaama aanu boos joogta ka helaynin. Haddii aanu intaas kaga nimaadno suuqa kala iibsiga, dhimasho iyo dhaawac tiro badan iyo khasaare kale oo ka dhashay ciyaartii dhexmartay iyo Cameroon iyo Comoros qodobkaas ayaana milicsan doona. ciyaartii tartanka qaramada Afrika ee xalay dhexmartay labada xul Cameroon iyo Comoros ayaa sababtay khasaare dhimasho iyo dhaawac tiro badan kadib markii ay isku dhaceen taageerayaasha labada waddan. Garoonka kubadda cagta The Paul Biya Stadium ayaa noqday meel dadku dhulka jiifaan oo dhaawac iyo meyd ay kala gurayeen kooxaha caafimaadka ka hor inta aanay bilaabin ciyaartii xulka Cameroon ay garaacday Comoros ee ugu soo gudubtay wareegga 8 dhamaadka tartanka qaramada Afrika. Inta la xaqiijiyay waxaa geeriyooday 6 qof, waxaase tiro badan dhaawacyada oo sare u dhaafay 50 qof oo la dhigay cusbitaalka ku yaala magaalada Olombe. Falkan ayaa dhacay markii taageerayaashu kasoo galayeen garoonka albaabka, taasoo si jiidad ay dooneen taageerayaal 50,000 oo qof in ay kusoo galaan qasab. Sidaa daraaddeedna ay markaa halkaas isku dhac ka yimi oo ciidanku waxyeello u geysteen taageerayaashii xulka waddanka Cameroon badnaa oo doonayay in ay soo galaan. Garoonkan ayaa qaada 60,000 oo qof, xadhigiisana laga jaray ka hor inta aanu tartanka qaramada Afrika bilaaban. Barnaamijkeennii ciyaaruhu intaas ayuu ku egay. Asxaabta nagu cusub fadlan subscribe saara. Asxaabta hore nolo joogta like share ku dara siina faafiya barnaamijkeena. Mahadsanidin.